ugu horreyn wax uga ogaano naflahan cajiibka badan sida uu u nool yahay awoodiisu intay leegtahay iyo tarantiisaba waxaynu u baahannahay inaynu shidaalsanno laashkeenna oo aynu dhex jimaxno biyaha iyo badaha waaweyn ee adduunka. waa suura haddii aad hirar joogsana aragto inaad u malayso in baddu ay kacsan tahay, balse markan ma aha kacsanaanta badda ee noolaha ugu xajmiga iyo awoodda badan meelaha aynu ku noolnahay ee dhulka ayaa biyaha gaadada ku soo tuuraya. ku soo dhowaada bartamaha badda Atlantic Ocean. waxaa lagu tiriyaa nimiriga buluuga inuu ka tirsan yahay naasleyda, cagsiga sida ay dadka qaarkii u maleeyaan oo ah inuu yahay kalluun. waa xayawaanka ugu weyn dunida oo dhan, miisaankiisu waxa uu gaadhaa 173 tan. tiradaasi waa lambar ka weyn xayawaan kasta oo bad iyo berriba ku nool culayskooda. waxaa ku soo xiga culays ahaan maroodiga. marka aynu ka hadalno dherarka nimiriga buluuga, waxa uu gaadhayaa 30 mitir. carabkiisa oo keliya ayaa culays ahaan waxa uu u dhow yahay culayska maroodiga. sida la sheego culayska wadnihiisu waxa uu leegyahay culayska gaadhiga. celcelis ahaan da'da nimiriga ayaa waxaa lagu qiyaasaa inay tahay 30 ilaa 80 sano. dhediga nimiriga buluuga ah ayaa ah mid xajmi ahaan ka weyn labka. xayawaankan ayaa waxa uu safraa masaafooyin dhaadheer, kuwaasoo gaadha marmarka qaarkood 10,000 kilomitir isaga oo raadinaya cunto ama meel uu diirimaad ka helo. safarkiisuna waxa uu qaataa muddo gaadhaysa 4 bilood. noocyada nimiriga buluuga iyo badaha laga helo waxaa jira inta ugu badan 3 nooc oo ka mid ah nimiriga buluuga oo laga helo badaha adduunka, waxayna kala yihiin Misculus wallace. waxa uu ku nool yahay waqooyiga dhulbaraha adduunka, gaar ahaan waqooyiga Atlantic Ocean iyo badweynta Pacifica. Intermediate wallace waxa uu ku nool yahay koonfurta dhulbaraha adduunka, gaar ahaan Antarctic Ocean. iyo nooca saddexaad oo ah Brieficoda wallace, kaasoo ah nooca ugu yar nimiriga buluuga, waxaana laga helaa badweynta Hindiya iyo koonfurta Pacific Ocean. muxuu cunto ahaan u cunaa nimiriga buluuga? waxa uu cunno ahaan u cunaa nimiriga buluuga noocyada kala duwan ee crustaceaniska, laakiin waxa uu aad u jecel yahay cunista krilliska. waxa uu cunaa halka nimiriga qaangaadhka wax lagu qiyaaso 3.6 kun oo kilogram maalintii. tir ahaan waxa ay u dhigantaa wax ku dhow 40 milyan oo krillisa maalintii. waxa kale oo uu cunaa nimiriga buluuga xoogay ka mid ah ooska. nimiriga buluuga ee ku nool Antarctic Ocean wuxuu quutaa shrimpiska. nimiriga buluuga waxa uu u baahan yahay maalintii 1.5 milyan oo calories si uu u helo. arrintaa waxa uu u baahan yahay xaddi fara badan oo ka mid ah xayawaanada badda. wuxuu hoos u quusaa dherer gaadhaya 500 oo mitir. afka nimirigu waxa uu ka kooban yahay safxado dhaadheer kuwaasoo leh timo yaryar oo sida shaarubaha ah, kuwaasoo ku yaala dhammaadka safxad walba, kuwaasoo ka saacidaya inay u kala saaraan cunnada iyo biyaha. mar walba uu nimirigu furo afkiisa waxa uu liqaa cunno xaddigeedu yahay 500 oo kilogram oo isugu jirta biyo iyo planktonis. waxaana uu iska soo tufaa biyaha isagoo la hadha planktoniska, waxaana u celiya timaha afkiisa ku yaala iyo safxadaha dhaadheer. kadib waxa uu ku qaataa carabkiisa kaydka badan qaadi karaa. inkastoo nimiriga buluuga uu quuso meelo fogfog si uu u ugaadhsado, waxaa lagama maarmaan ah isaga iyo naasleyda idil ee badda ku jirta inay kor yimaadaan si ay u neefsadaan. marka uu neefta soo tuurayo waxa uu u soo tuuraa biyaha sidii ay yihiin qiiqa, kaasoo kor u toosan cadaadiska awgeed. dhererkeeduna waxa uu gaadhaa 9 mitir. halista uu ugu jiro dabargo'a.
waxaa la sheegaa in nimiriga buluuga ahi halis ugu jiro dabargo' qaab dhexdhexaad ah kadib markii ay soo korodhay dhammaadkii qarnigii 19aad iyo bilowgii qarnigii 20aad shaqada ugaadhsiga nimiriga ee badda koonfureed ee Atlantic Ocean iyo jasiiradaha ku yaal badaha kala duwan sida Japan, Indonesia iyo Iceland. daraasado la sameeyay ayaa waxay tilmaamayaan in tirada nimiriga buluuga ah aanay dhaafsiisnayn 20,000 oo nimiri adduunka oo dhan. arrintaana waxaa sabab u ah ugaadhsiga aan loo meeldayin ee lagu hayo. waxa ay gaadhay tirada nimiriyada laga ugaadhsaday badda Atlantic Ocean ee koonfureed oo keliya sanadkii 1930kii in la eg 30,000 oo nimiri. markaa kadib guddida dawliga ah ee ka kalluumaysiga nimiriyadu waxa uu soo saaray go'aan uu ku mamnuucayo ugaadhsashada nimiriga buluuga sanadkii 1966kii. inkastoo uu nimiriga buluuga ahi awood weyn leeyahay haddana waxa uu ugaadh u noqdaa weerar kaga yimaada kalluunka qirshiga iyo nimiriyada kale wax ugaadhsada. waxa kale oo dhaawaca ama dila sanad walba doomaha waaweyn ee ku safra badaha waaweyn ee kala duwan. wuxuu kaloo halis ugu jiraa oo aan ahayn ugaadhsi waa global warming ama kulaylka cimilada taasoo kor u qaada heerkulka badaha sidoo kalena keenta milanka barafyada labada daraf ee adduunka taasoo handada deegaankii dabiiciga ahaa ee xuudka buluuga ahi uu lahaa. waxa kale oo lagu tiriyaa dhaqdhaqaaqa doomaha baduhu inay saameyn aad u weyn ku leeyihiin nimiriyada sababtoo ah doomaha ayaa ah kuwa dhib u geysta ama dila nimiriga. waxaa kaloo ay wasakheeyaan biyaha badweynta. ahaanshaha nimirigu uu yahay naasleyda awgeed dhadigu waxay dhashaa dhasheeda cagsiga kalluunka kuwaasoo ku tarma beed ama ukun dhalid. waxa uu dhashaa nimirigu isagoo dhammaystiran waxaana lagu tilmaamaa xuut. balse nimirigu waa mid aan aad u tarmin sababtoo ah dhiddiga nimirigu waxa ay dhashaa hal mar 2 sano ama 3 sano. muddada sidkeeduna waa 10 ilaa 12 bilood. waxay bilaabantaa xilliga taranteeduna xilliga dayrta. dhasha yar ee ay dhasho nimiriyada culayskiisu waxa uu gaadhaa 3 ama 2.5 tan. mana awoodo inuu taran sameeyo ilaa uu gaadho 5 sano.